قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. kusoo dhawaada barkoolkeena Cabdulla Mansuuri. waxaan dirajinaya dhamaantiin inaad caafimaad iyo khayr iyo wanaag aad ku wada sugantiin. waa xalqadii toddobaad ee barnaamijkeeni aniga iyo Qur'aanka. xalqadii ka horeysay waxaanu kaga soo hadalnay aanu isdultaag ku sameynay aayadda iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin. cibaado walba oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xadiis aynu sameeyno ama ficil walba Ilaahay dartii aynu sameeyno inagoo niyad wanaagsan ku darnay inuu cibaado inoo noqonayo. soo kale waxaanu ka hadalnay iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin. wa iyyaka nasta'iin oo kaalmo walba insaanku dalbado ama uu doono in Ilaahay subhanahu wa ta'ala xadiis uu kaashado iyo mafhuumka guud ee runtii aayadaasi ay ka hadlayso. waxaanu soo sheegnay haddii insaanka uu doonayo muhiimaadkiisa uu dunidan inuu wax ka qabto oo runtii muhiimaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala kownkan uu keenay inuu qabto uu sideeda u fushado in loo baahay in mafaahiimta ku xeeran kownka in runtii wax ka fahmo oo ka mid tahay mafaahiimta aan hore u soo sheegnay ay ka mid tahay mafhuum الرحمة ومفهوم العالمين ومفهوم العبادة. عبادة أي تاي شيء فعل والبا وقف كل أيام حتى مدحوينه هذو ما أنت أمديسة وهيربحوا وأفعال وناسن إيو قرشيال وناسن والله ما دو خالص لوجه الله وكيه هي أمديسة وهور مريم اللي لفت كده تاس عبادة أي نقانس مفاهيم تركوا حالا كون كرنتي إنه وقف أما إنسان كفهمه سوى مكان مهماته وقبصه. ومع ذلك هذه أنا صور دعنا رمتي أنا حق إيمان ما أنت موضوع عن حلقات كذا هذينا. تاسو آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آية سمونتي إلهي سبحانه وتعالى مركو إهدنا الصراط المستقيم وإياك نعبد وإياك نستعين مركو آية إنه وصل شيء وجدت كيد صورة إلهي سبحانه وتعالى إلي كلي إنه مو بنين وهلك إنه يموت لكن والمثال يتضح المقال بلا يرضى تصالح عضية هذا إلهي سبحانه وتعالى وحنور شيء ضد إنه يخريه وجدتك الراعي isla markaana jidkaas si khaldan u raacay marka dhibaatooyinka ay la kulmeen iyo ciqaabta ay la kulmi doonaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo sheekeeyay iyo inay lumeen dadkaas marka jidkii ay ku lumeen baa la inoo sheegay waxaana leeyahay jidka kale idinku raaca oo inaad ka baydhama muhiim oo maca dalika quraanku مثل walba oo inoo soo qaato ama mar walba wax inoo sheegayo labada qaab ama labada dhinacba ama labada wadaba ama labada jaanib Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo soo bandhiga si labada wadaba ay nagu cadaadaan marka ka saxda aynu u raacno. waxaan arkaynaa quraanka inuu in badan inoo sheegay acmaal saalihiin dadkii wanaagsanaa ficilada ay la imaadeen oo kamid hay muqaamatu duuyaan in duuyaankii laga hortari in insaanka cadaalad loo sameeyay in laga qayb qaato in kownkan la dhiso oo horumarkiisa iyo dulqarnayn oo kamid ahaa in الدفاع عن الحق ان حقي للدفاع مثل بدن بين runtii aynu arkana waxaan saa lidkeeda aynu arkana amثال badan oo quraanka runtii in badan ka sheekeynaya sida yahuudiya nasaara oo quraanka runtii in badan uu ku dheeraaday maadaama ay ahaayeen dadkii nabiyada ugu badnaa laga soo saaray maadaama ay ahaayeen dad qaabka nabiyada ula dhaqmi jireen iyo qisaskii soo maray ay qaar cibro qaadasho ay yihiin sidoo kale waxaan quraanka soo uga hadlay Abi Lahab oo runtii aynu arkayno Abi Lahab ama aynu aragno shakhsi nabi sallallahu alayhi wasallam horistaanay kuna in tabalaka سائر اليوم على هذا جماعة هذا الفضل أي رمتي أي أمة ليسانه لذلك بقى رشيد الرضا يبو بيسا كتاب المنار وحكولية البعض يعتقد أن الموضوع متعلق أن نحوقل ثم نلعن ونديم ذاك تطلع واحد يستان إن الشخص قاس أن نعذر الله لا حول ولا قوة إلا بالله إن أرنو سلامة كان أن بلا أرنو قف راسها فعل حب الإمادة لكن waxa leeyahay ama quraanka mafhuumka uu ka dambeeyo oo qisada kaliya ay tahay in insaanka qof walba oo wax wanaagsan la imaado daaci haday noqoto aqoon haday noqoto madax wanaagsan haday noqoto oo wax wanaagsan ummadooda u soo bandhiga in ay jiraan dad ka hor imanaya oo ka hor istaaraya oo isla markaana dhaleecaynay isla markaana aan qiimeynay qofka risaalada uu wado halkay ka timid iyo cidda uu soo dirtay iyo waxa uu ka hadlay laakiin qiimeynaya shakhsiyadda qofka qiimeynaya marka mafhuumka uu ka hadlay waa kaas oo marka loo jeeday qof kasta oo maanta casriga jooga inuu ka qayb qaato isla markaana uu ogaado ficil walba oo wanaagsan uu la imanaya inay kaga iman karayaan dad ka soo horjeeda ama afkaartiisa aan ku taageersanin lidna ku ah لذلك بقى قرآنك مثال والبقى إنه سوقاته إسلام كان دتي وناسنا أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعل كستون له لا يمد
oo la doonaya xaqa ay wadaan in lagu hor istaago in maantan uu dhici karayo وقف مدحه وكل عكريه قف أقويهنا وكل عكريه وإسلام أمدي سهراتي أما واحد في عنه قبو قف داعية وشيخ يعني عقبات أسكو إيمان كريسو مكان يعني يعني عبرت للزمان والمكان ويان يعني إن لود وقت واحد أوكي لكن لا عبر قاطع إن ما تنا أي من كريان إسلام كان يقف وجد والكيسي يقرشيسه يعني أكو درسان خاصة دعاء قولين كده يعني دعوتك الشقيين أو مضى يعني جهيان أو موجهين أي نقطة إذا في يوقف نسوا أقويها أنا يدوني يعني أنت أمديسة إنه لسه أم فاهمتي أخلاق ده إيو يعني أنت سلوك ده يعني أنت واحد لسه هذا هذين أصول دعنو يعني مفهوم ك يعني آيات هذين أصول دعنو الله سبحانه وتعالى في الموضوع عليهم يعني واحد يقيم سما يعني قولين حق كرتي oo quraanki iyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu xaq yahay gartay ama si ogaaba oo yani kutubtooda ay yani ugu taalay kadib markii nabi sallallahu alayhi wasallam ogaaday inuu quraysh iyo carab ka soo jeedo ayay yani xan u galay isla markaana yani yaro ilaashanaya jaahooda iyo suldadooda iyo maalkooda iyo yani hawadooda raaciya ay waxa ka soo jeestay maxay yani inkaar yani alxaq bismi yani nabi sallallahu alayhi wasallam ka soo jeestay oo yani nabinimadiisa ay diideen diitaanka ay diideen waxa ka mutaystay inay runtii ay gaar noqdeen ومع ذلك بقى يعني جاهلين وقت الجاهليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم markii ummadii uu soo bandhigay yani risaaladii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo faray uu soo bandhigay ma qiimeeyay nabi sallallahu alayhi wasallam yani noloshiisa hore ma qiimeeyay oo inuu yani as-sadiq al-amin ha ma qiimeeyay soo kale yani ma ku qiimeeyay fariintan uu wada maxay tahay ismay weydiin oo may weydiin yani qofka soo cid soo dirtay waayo may oran risaalada uu wada maxay tahay taxliil may saarin laakiin waxay qiimeeyay tariiq shakhsiyadii ay qiimeeyeen lidalika waxa ku tilmaamay nabi sallallahu alayhi wasallam as-sahir al-majnun ku tilmaamay waana mushkilad haysna maanta dhamaan yani cid soo isnaado umadiisa iyo dalkiisa wax u qabta ay istirada oo ducaadna ha noqoto aqoonyahan ha noqoto madax ha noqoto waa dhibaatooyinka haysta inaan qofka la qiimeyn yani risaalada uu wada iyo fariinta uu wada la qiimeyn fikirka uu wada iyo falsafada iyo aqliga urunta uu wado ummadda sidii ku had yani aan la qiimeyn bas kaliya la qiimeeyo qofka shakhsiyadiisa la qiimeeyo taas oo ah yani in qabiilkiisa lagu qiimeeyo yani xaq ka soo jeeda lagu qiimeeyo waxa uu haysta lagu qiimeeyo mansabku haysta lagu qiimeeyo kaliya in inta ay isku qiimeeyno marka dhibaatada waagaa jirtay nabi sallallahu alayhi wasallam loo imid inay imikana ay jirayso marka yani labada cilaaqo saaso ay isku barbardhigayaan lidalik ilaahay subhanahu wa ta'ala yani quraankiisa ama aayada sidoo waxaan ka fahmanaa in dhibaatooyinkii ummadda haystayba ay yani maantana ay haysan karayaan inta ku kulmana xalqada xigta duntum fi ra'ayatu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء